بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داودياشا qiimaha iyo qadarintan halkani waa telefishinka caalamiga ee Universal xaruntiisa magaalada Toronto ee gobolka Ontario soo dhawaada qaybtii labaad fanaanada codka halaasiga leh waa Khadija Cabdullaahi Camay Dalays oo caaw u dabaaldegaysa fankeedii oo 60 jirsaday isla markaana aan ka wareysan doono bilowgeedii fanka ilaa ay haatan oo la galay 2013 oo aan gudagali doono taariikhdeedii sooyaalkeeda barnaamijka ayaa caawa marti u tahay waxayna marti igu tahay stuudiyaha telefishinka caalamiga Universal ee magaalada Toronto barnaamijkeena aalaba waxaa soo saaray iskuna soo dabarida saaxiibkay Cali Bakri Sheekh Ben Sheekh anigoo mahadana had iyo jeer waa idin la socodsiiyaa Dalays mar kale habeen wanaagsan Khadija waati aan ku jirnayo fankaagii qeybihiisa kala gidisna daawadayaasha aan ka cudur daarto iri fankii Khadija hadii aan hataa bilaabo waxa laga yaabaa 3 biri hataa inaan dhameyn karin Khadijoy hawladii waa bari baad kamid ahayd waad ka horeysay fankaagii waa laba jibaartay fanaaniinta qodooda waxaan dareemayaa inay ayaga naftooda is jecel yihiin is dhageystaan markaan dhageysigaaga ka hor aan dhageysi ku widi yaa jeceshahay inaad heesooda dhageysato wallahi qofaan tuuraba ma garanayo haye qofaan tuuroon leh qofkaas ma dhageystaba ma garanayo waayo waxay ahaayeen hoobalada waa bari ummad Soomaaliyeed shanta Soomaaliya ka timid oo miskax isku miskax wadatay ahaayeen wadaniyada jecel bay ahaayeen dad waxay ahaayeen anigu kolley waxay u leedahay iyada ka mid ahayd baa laleeyahay runtu siday tahay dad aan la helayn 100 sano dambana aan la isu keeni karin dad sidaas oo kala ah ayay ahaayeen qof ka dara qof ka dara wiiliga gabarba adi markaad heesayso oo aad masrax soo istaagtay qof buu ka helaa yaa jeclayd inuu kula heeso wallaahi heesaa horta kaligay baa u badnaa heesaa ilowse fanaaniintoo dhan waxaan tuuraba ma haya kuwii dhintayna allaha u naxariisto inta noola ilaahay subxaana qaadiraha dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysaa waxay ku dhacday ciidankii xoogga dalka ay dhibaatadii ku habsatay ciidankii biliiska ee nabadgelyada ee quruxdana uga helaha bay ku habsatay isboortigii Soomaaliyeed bay ku habsatay waa inta aad u dhibtootay fanaaniintii bay ku habsatay ilaahayna waxaan ka baryay ilaahay inuu naga dulqaado ummadda Soomaaliyeed ay soo noqoto isboortigii soo noqdo biliiskii soo noqdo quruxdiisii xoogii dalka iyo kumaandooskii markay guuxayaan jariiro cood jirtay ilaahay inuu soo celiyaan ka baryayna fanaaniintii Soomaaliyeedna annagu maanta hooyooyin baan noqonay iyo aabe kuwa maanta heesaya kuwaan dhalay baan siye dhalay ayeeyaanu ah kuwaan ayeeyaha u hayna waxaan ilaahay ka baryayaa kuwii kaalin fiican ka qaata fankooda iyo sharafkooda ilaahay uga baryayaa aamin ya allah waa tahay Dalays waxaan ogahay inaad ka mid tahay inaad baydhabo ku dhalatay inaad ka mid tahay fanaaniinta farakoturiska ee afka maymayga ku haysa caawa daawadayaasheena daawanaya maxaad caawa heestan afka maymayga ay ku heesaysa maxaa la yiraahdaa waxaan bilaabay 1957 ayaan bilaabay hees maymay ah afrax weyn ah maymay ma aha afka bay ah aniga suufi calaaqaad jiray oo bilownay suufi baa naaxiyada lahaa miraha asaga iyo nin kale iyo waxbaan isku kabkabnay waxaa la dhihi jiray mukomaarma mugdigii hamiga mutbaadii sileeye taamayoke ayowide mutbaadii sileeye taamayoke mandera imoyale maylow mayaanta meela ijeetay mugdisho hoosje igmootisa taasaan ka bilowna taasaad ka bilowda
واتاي هستان هذا إن المكين قلاو يعني وأتكرر أهيسيسو أو waxaa sameeyey sahal macalin ciise هي muusikadana waxaa sameeyey xasan gareed baan u malaynayaa واتاي إن waxaan door bidi lahayn daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta lahow inaad bal heestaan qiimaha leh horta ninkii sameeyey waa jiran yahay sahal macalin ciise wuxuu igula dhashay baydhabo isku wadan baanu ku dhalanay isku caraanu ku dhalanay ilaahay waxaan uga baryayaa horta inuu caafimaad siiyo amiin ya allah heesa badan buu sameeyey amiin heesaha xasan aadan qaadoo dhan isagaa sameeyey aniga heeskaan isagaa ii sameeyey lang naftiis bilaaley maskantiis nileeti lang naftiis bilaaley maskantiis nileeti ganyo laabadey lutoodhay kurogo alang naftiis bilaaley maskantiis nileeti alang naftiis bilaaley maskantiis nileeti ganyo laabadey lutoodhay kurogo aan moodaa inaan baydhaba joogo waa tahay in waxaa jirta in fanaaniinta waqooyi ka timid oo hadda sawirkan ii muuqda oo aan halkan ka arkayo maxay kala yihiin fanaaniintan fanaaniintan waa lafdhabartii hobalada waa beri waayo abwaankii wadanigii cabdullaahi qarshe baa ku jira abwaankii wadanigii israel u heesi jiray iyo kii israel
bahal yaroo la yidhaahdo muusig la jiijiido organ yaroo la jiijiido ninkii ka tubi jiray fiise armoona la dhihi jiray ninkii ka tubi jiray baa ku jira waa xuseen mambaruug iyo qaasin holowle iyo wadanigii cabdulaahi qarshi iyo abwaankii weynaa ee wadaniga ahaa xuseenow faarax iyo aniga waa shantayadaas ayaa lama sawiray waxaa lama sawiray OOUdii yaana lama sawiray masawiradii OOUda taariikh ahaanta loo siinayay ku jirta waa tahay cabdulaahi qarshe waa tii aanu cadan ka yimid wallaahi ma garanaya cadan laakiin waxaa la tilmaamaa inuu fanka Soomaaliyeed soo barbaariyay wax weyn ku soo kordhiyay wadani waxa ahayn ma heesi jirin maxuu ku soo kordhiyay fanka Soomaaliyeed cabdulaahi qarshe wuxuu ku soo kordhiyay 100 heeso oo wadani ah waa sheekada sidaan ku maqlay nin kibir badan oo Ingiriis halanda wuxuu tagayay Hargeysa la keen oo dadka karbaaji jiray oo dhibi jiray wuxuu yiri ka kacay la isku soo kadiyay ka kacay kama yimiday ka kacay Soomaalay ka kacay oo la dagaalama ninka marka gumeystihii aad buu ula dagaalamay gumeystihii ayuu la dagaali jiray wax badan baa Soomaalida ka faa'iiday wuxuu kaloo dhihi jiray dhulkii weydi sugayaaye Soomaalida kale u baaqi jiray soo dhawaada oo walaalayaalow dhaqsada ogaada markaasaa la ooyi jiray waa tahay dalees waxaa jirta hees ka mid a heesahaga oo aan aniga qudhayda aan aada u jecelahay ma dareemi kara heestaas mar walba waxaan is irahdaa markaan meel isku aragno war daleesay heestaan maxay ahayd laakiin caawa aan ku wareysanay aniga qudhayda oo aan ka mid ahay bal dadka fursadda ku helay heestaan hadday midigta iyo bidixda ka maqan tahay macno yeelan mayso heestaani maxay tahay heestaan nin tarwiish la yidhaahdo oo idaacadda joogi jiro heesaha dadka heesaha iyo sheekooyinka dadna way qoraayeen dadna waa laga iibsan jiray sheekay soo samaynayaan heesay soo samaynayaan lacagta kaash baa loo siin jiray dadkaasuu ahaa guriguu iigu yimid waa sheekaysanay waddanka iyo beeraha iyo dalka iyaan ka sheekaysanay wuxuu yidhi khadiijooy hees baan rabaa inaan beeraha iyo webiyaasha iyo adduunka aan ka sameeyo Soomaali way dhagala adahay halkaa iyana galbeed buu nooga yimid ninka reer galbeed buu ah heeskii waa isla fiirinay heesaan qaatay oo u bogay buu noqday mangaabka taladiisu waa maqaana jooge waanada maqaato wuu malaamaleeyaa camay dalays oo aniga dooqeyga ah waxaan filayaa inaadan ku qasaari doonin caawa dooqeyga waa heesaan weligay jeclaa fursad waxaan is oran jiray kol haddii dalays oo nool aba adiga oo nool aad meel ku kulantaan bal heestaasi waxay ka turjumaysay bal weydii dalaysay waxaan boodi jiray heesaan inay jecel tahay wax soo saarka dhulka iyo beeraha soo saarka beeraha iyo dhulka wuxuu dhihi jiray bal laba webi baan leenahay markaasaan khadiijaay adduunka weydiisanaynaa galley gaduudan annagoo dhulka iyagu maanta haddaad ku rido xabad masaga ay berri soo baxayso waxaas ka sheekaynkayraadka dhulkeenna ku khayraadka matal weeye webiyadu midii dhex jiifto waa madal barwaaqo duuyadu mushaaxde male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye midigtuba macin male hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye muruqiina maalo dhulka mira ku beero muruqiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaagay muruqiina maalo dhulka mira ku beero muruqiina maalo dhulka mira ku beero macdan
wanaagay maqana jooge waanada maqato wuu malamaliya magaabka taladiisu waa maqana jooge waanada maqato wuu malamaliya mahmaadi dhaqankan murtadii ku sheege ruuxi maraadsan iyo hadalkama macaaje mahmaadi dhaqankan murtadii ku sheege ruuxi maraadsan iyo hadalkama macaaje murudiina maalo dhulka mira ku beero murudiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaagay muujiya wanaagay murudiina maalo dhulka mira ku beero murudiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka muujiya wanaagay muujiya wanaagay salweeyo webiyadu midii dhex jiifto waa madal dhawaaqo duunyadu ku midhantee salweeyo webiyadu midii dhex jiifto waa madal barwaaqo duunyadu mushaaxdee mootada la raaciyo tagsi lagu marqama muluq muluqdad suuqyadu macna yeelan mayse mootada la raaciyo tagsi lagu marqama muluq muluqdad suuqyadu macna yeelan mayse murudiina maalo dhulka mira ku beero murudiina maalo dhulka mira ku beero macdanta dahabka u dhacay qof walba xaalado kala duwan buu soo maray markii burburka dhaca kadib aday halkee baad afka saartay anigu waxaan afka saaray magaaladan ku dhashay baydhabo baydhabo kadib maxaa xigay baydhabo dagaal baa ka dhacay weli dhegtaanu wax kuma kama maqalo maalin bahal la ridoonan ba garanayn oo la yidhi waxaa la yidhaahdaa BM weligay BM ma arag korkayguu maray bil dhan wax alla waxaan maqlayo ma jirto waa ka soo caroo gadaan imid gado markaan imid anoo nabada oo baydhabo iska joogaa
balaayo is oryoonaysaa soo gashay waa soo cararay gadaan imid haddana gaday iiga daba timid wadaadaa kacay 5 saac maalinimo madaafiicday bilaabeen ilaa waagu ka baryo madaafiic bay magaaladii ku wadeen dugurkaan u carara libaax waa nasiga ilaahay baa naga badbaadiyey lo buu helay lo socota ayuu helay asagoo na daba socda yaa ilaahay lo socota baa yuu xaggeedii adalabay ahaayeen labadiiba annagoo arkaynay naga carareen lo'dii bay aadeen saan usoo rafaadiyey gado u joogay ka soo qaxay haddana waxaan soo galay magaalada mandheera way anfici weyde waa ku gaajoonnay dib baan haddana u soo baxay faaduma maandeeq ayaa lacag mandheera iigu soo dirtay waxaa lacag baa kuu taalla maandeeq kuu soo dirto lacagtaydii baan qaatay walaashay waan cararo waxaan galay nairobi baan fadhiistay nairobi baa haddana dhiban ku tartamaya madaxweynenimo oo dalka ayaga iska leh haddaad hal far taagtana kuwa 2 farood baa ku dilaya xisbigu waa 1 far far haddaad taagto waa xisbigii aramood kaanu waa lagu dilayaa ninkan Moi Kibaki xisbigiisana waa 2 farood way ka hor imaanayaan iyagoo bangawoodad yaa tahay keed raacsan tahay haddaad saan tirahdana waa kow lama kale taqaanid haddaad saan tirahdana kaba daran xaalad adag un baa la galay 2 farood ama farti kaliya waad eedaysaa waxay gaartay 3 maalmood inaan qataniino guryaha dhexdooda ku jiro oo waliba nidka waa xiliya oo daris yahay wixii qof fiican batay adii caruurtaada iyo waxa jeceshay gurigeega soo gala gurigiisii uu nabadgelyo nagu siiyo ku jiro ninaan daris yahay ninkaana ma iloobay daris baan ahayn oo hoteelkan deganaa buu ku deganaa tabakaayuu lahaa waxbaan ka gadgadan jiray wiilkayga yar iyo ilmihiisana way wada dheeli jireen wuxuu yiri nimankii baa soo socda dadka leynayay waa 2 xisbiye xisbina wuxuu u dagaalamayaa aramood xisbina wuxuu u dagaalamayaa Kibaki fartaana waa diidayaan qolana 2 farood bay rabtaa qolana far bay rabtaa soo gala 3 maalmood gurigiisaan ku jira magaaladii waa la joogta waa la jajabiyay cagta la mariyay ciidamada la keenay ciidamadii qalabka siday keeneen biliiskii waxba waa ka tari waay ilaahay anagoo ku jira kuutana noo dheertay adoo qatan oon shilin haysanin baa 2 ninoo askara oo qoryo wadato bidaar isugu kaanabaysaa kuuta waa qofka u dhow wewe waa kaas xagga maraya sii socda kaalay waa leeta beesa waxba suurowda beesa iska dhaafa inaadan saaka soo quraacan hees baan uga soo tagay keeyo ku jahaabadu maaniga weeweydu makaas kala anoon kiradiiba haydhin naftaydu kadeedan tahay makeen lacag baa macnuhu ilaahow adaa kariima marka waan iswaali jiray dadka waalan lama taaban karo hadduu qof waalan stationka geeyo dare isagaa la xiraya mar alla markaan arkaan inta dabada hayto oo gambada tuuro oo carro qaato isku shuban dhex mari jira xaaladaha ku soo maray saasaan ku noolaa waa tahay waa qayb ka mid ah marxaladihii ay soo martay Khadiija Cabdullaahi Axmed Daleys oo caawa inooga sheekaysay dalka Kenya oo haatan ay dhibaatooyin aad u fara badan ay ka taagan yihiin daawadayaal waa tii aad qurbaha timid waan imid waad qurbaha alxamdulillah ilaahay waa ku samakay maalintaasa iigu horeysay aan Canada soo galay inaan seexdo oo hurdo waa tahay oo albaabkayga furan seexdo oo inta xaragooda dhaqaaqa lugeeyo hadba tukaan gala ilaahay baa mahadle waan qaboobay miskaxdayda samadaafiicdii iyo gawdii iyo wixii weli waa ku jiraan waxay ugu jiraan albaab hadduu garaacmo ama wax dhacaan waa naxaya wixii xasuusanaysaa waaya naxdin 2 baabuur hadday isku dhacdo bari dhaweed anoo maraya 2 baabuur isku dhacday rabbil caalamiinka dhulkan ku dhacay waa nax
xasuusaa gashay xusuus baan galay marka jugtii waa nagu wada jirtaa ummad jugtii nagu qaadataan helay kulli ma wada fiyoobin runtii waxay lagama sheekeyn karo lagama sheekeyn karo saana waa tahay waddankan Canada waa tii qabow caawa aad arkayso barafkeena wareeriyey anu qabowga ma ka hel qabowgaad ka heshaa marka dhiikar baan qaaday macaan baan qaaday marka qabowga baan ka helaaba anigu samarka la sheego waa xanuunsadaa qoraxda uma adkaysan marka adigu qabowga dadkaygaasaan bartay iska rabaa waa tahay Khadiijoy hees habeen dhawood aan daawanaya adoo meel fagaar ah ka qaadaya hees aad iyo cajib gelisay bay ahayd kol haddii dadkii ay heesaysan markii dambe waxay isku bedelaan mu'allif heestan ma adiga sameeyay anaa sameeyay mirahana adaa leh muusiga yaa ku saaray muusikada Umar iyo waxa saaray Awees Qaali waa tahay bal heestan miraheeda wax yar ma naga maqashin kartaa dhulka dhawaaqay dhalaankaaba ooye hooyo way dhibtooto shacabkii dhammaayey
waxay soconaya waa Soomaaliya haystaayeen waa tahay maxay ka turjumaysaa dad Soomaalida iyo dhibaatada taala dhulka dhawaaqay dhulkii la cun wixii ku jiray la bax waa dhawaaqa dhalaankii ooyo gaajo looy hooyadii way dhibtood shacabkiina xabad baa laysa waa tahay Soomaali ha ka nabado waa tahay heestan kale cajiibka ah oo goor walba xafladaha lagu furo magaaladan Toronto iyo waqooyiga Ameerika caanka ka ah ee la raada ayadana calankii midnimo heestaas yaa sameeyay baalaha muusiga saaray muusigada waxaa saaray Cumar Muuse Cadde Cumar Bongo isla markaana daawadayaal tilmaamo hadal kuma jiro waa heesahan tirada badan ee had iyo goor aan ka soo saarno magaalada Toronto ninka muusigada saara isla markaana la xameeya waa fanaan weyn oo ilaa iyo birsamaadka ku jira fanka Soomaaliyeed bal waxay naga maqashayso heestan calankii midnimo Khadija Cabdullaahi Camay Daleys beedka ay ku leedahay heestan dad badan baa wada qaada Nakruuma qaada Cumar baa ka mid dadka qaada Abdulhaab Antarnaaji baa ka mid oo halkan idin kaga muuqda bal beedka aan dhageysano Khadija Cabdullaahi Camay Daleys daawasho wacan markii la iscaawiyaad codkaaga ku dhiirataa cadaawuhu ka baqaa ciidaaduna ay nabad gashaa markii la iscaawiyaad codkaaga ku dhiirataa cadaawuhu ka baqaa ciidaaduna ay nabad gashaa caawa fursad bay ku tahay dad malaayiin baa ka daawanaya telefishinka caalamiga Universal xaruntiisii baad joogtaa magaalada Toronto yaad isdhihi lahayd caawa aniga Cali oo kaamirada inoo haya anigoo mahadoo ku wareysanaya fursadan qaali adoo ka faa'iideysanaya yaad jeclaan lahayd inaad halkan ka salaantid yaad jeclaan lahayd inaad wax sheegtid waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel alla meelay joogaan waxaa soo socda oon rabaa inaan turjubaan ka noqdo caruur Jarmal ku hadlaysa mid Scandinavianka nusxad ku hadlaysa mid Chinese ku hadlaysa mid Ingiriis ku hadlaysa intaa in Ilaahay intuu isu keeno aan turjubaan u noqdo waxaan ugu noqonayaa waxaan samaysanayaa afkooda mid u eg kiishiina ka yimid baan kula hadlayaa uu garanaya kan Jarmalkoona dhaxta khudkan taasaan kula hadli doonaa Ilaahay inuu isu kaayo keeno ayaan Ilaahay ka baryayaa waddankayadiina nabad alla nooga dhigo anagoo afaf badan wadan anu kolley Ingiriiskii anigu iskuma fiicni markaan 5 qabtaba hal baa iga carara halkii intaan daba ordaya afartii kalena baxdaa markaasaan soo istaagaa meel cilla marka waa luqadda iyo waxbaad isku wareerteen waa isku wareer hadiyad bar insha Allah dalka Ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed meel alla meelay joogtaba Allah isu keeno waddankayagii nabadgelyo intiina soo dhaweysay ee na sharaftay wixii Soomaaliya waxaan idinka codsanayaa wixii aan ummadda Soomaaliyeed sharfin hadhowni baa wuxuu dhihi doonaa waa hebel oo waa saas oo waa kadhiisho waan soo dhaweynayaa haddaba yaanaan soo dhaweynin intiina sharaftay aan soo dhaweyno intiina sharaftay aan soo dhaweyno dad badan oo aniga u ciqabaa jira oon ka baqayo anoo boqol jira inaan jabhad samaysto kuwa la dirira waddankii haddii lagu noqdo yaanan jabhad samaysanina wax alla wixii ummadda Soomaaliyeed xumeeyey yaanan soo dhaweyn calaaqaadna yaanan la yeelan sidaasaan dhihi lahaa Universal ee isiisay ee isharaftay ee ii yeertay sanad guuradaydii 6aad
ee ii yeertay aad iyo aad baan idinku mahadinayaa waana idin wada salaamayaa ummadda soomaaliyeed dhammaanna waan salaamayaa waa ku celinayaa waan salaamayaa 3 goorna waxaan salaamayaa dalkii aan ku dhashay 3 gooroo kalena xamar waan ku koray magac baan ku yeeshay waan ku weynaaday waxbaan ku bartay ayagana waan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel alle meelay jirtana waan salaam daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta law intani waxaa inooga dhawaaday barnaamijkay gaarka ahaa isla markaana caawa martida ay inoogu ahayd fanaanadii codka halaasiga lahayd isla markaa muddo 60 sanadood ah dabaaldegeedii ugu horeeyay ee sanadka waa 60 sano jir fankeeda ayaa caawa u dabaaldegtay stuudiyaha telefishinka caalamiga Universal ayay caawa marti inoogu ahayd isla markaana casuumaad u fidiyay isla markaana ay ka soo jawaabto caawa halkan marti ayay inoogu ahayd oo heesaad arkaysaan iyo fankeedii kaga sheekeen Khadija aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad telefishinkan waa ku mahadcelinaya thank you very much thank you